kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba halkan waa Somali Cable TV qodobada wararka dunida aan idin haynana waxa ugu waaweyn oo warbaahintu ay daawacday Donald Trump madaxweynaha Mareykanka waxa uu durba bilaabay qorshe cusub oo uu magaalo kale oo Mareykanka ku taala uu ugu daabulayo ciidamo heer federaal ah qodobada kale ee aan soo qaadan doonana waxa qayb ka ah daqiiqadaha aynu hawada ku jirno Kuuriyada Waqooyi gantaalo cusub ay tijaabisay xilli uu goobjoog ka ahaa hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un waxaan kaloo eegi doonaa Gaza waxa laga soo sheegayaa xaalad gaajo iyo waliba sidoo kale macluul daran inay ka jirto tii oo jirto ayaa haddana Israa'iil waxa ay beegsadeen qaybo kala duwan oo Gaza ku taala ugu yaraan 100 qof ayaa la soo sheegayaa in ay sababeen weeraradii ugu dambeeyay in ay ku geeriyoodeen wararka warbixinada iyo waliba sidoo kale faahfaahinada ku gadaaman ayaynu eegi doonaa iyada oo Israa'iil ciidamada militariga ay xaafadaha ku yaala Gaza ay gudaha u galeen dhowr xaafadood oo ay galeen oo warbaahinta gaar ahaan telefishinka Al Jazeera laga baahiyay ayaynu idila wadaagi doonaa hayeeshee aynu ku hormarno qorshaha Mareykanka madaxweynaha dalkaasi Donald Trump oo ciidamo ugu daabulayo magaalada Chicago iyada oo durba dhaliilo kala duwan loo jeedinayo oo ku saabsan qorshaha iyo go'aankaasi uu qaatay ee ciidamo halkaasi ugu geenayo sababta maxay tahay warbixintan aynu ku eeganaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu wajahayaa dhaliilo xoogan kadib markii uu ku dhawaaqay in ciidamo uu u diri doono magaalada Chicago taasi oo uu ku tilmaamay qayb ka mid ah xakamaynta dambiyada ka socda magaalooyinka Mareykanka hase yeeshee gudoomiyaha gobolka Illinois ayaa waxa uu ku tilmaamay qorshahani inuu yahay ku xadgudub awoodda madaxweynaha isagoo sheegay inaysan jirin xaalad degdeg ah oo u baahan ciidamo in la geeyo gobolka waxa uu ku eedeeyay Trump inuu doonayo inuu abuuro khilaaf siyaasadeed oo aan goobta ka jirin magaalooyinka ay Trump ka hadlay oo ay ku jiraan New York iyo Washington DC ayaa waxa kaliya maamula mucaaradka waxaana arintaasi loo fasiray isku day uu Trump ku bartilmaameedsanayo madaxda dimuqraadiga ee halkaasi ka arimisa dhanka kale duqa magaalada Chicago Brandon Johnson ayaa waxa uu sheegay in aysan dawladda hoose la socon wax qorshe ah oo ku saabsan dirista ciidamada isagoo ku tilmaamay tallaabadani mid aan loo baahnayn oo khatar ku ah kalsoonida shacabka Mareykanka gaar ahaan magaalada Chicago Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay tijaabisay gantaalo cusub waxaana xilliga tijaabada ay sameynayeen goobjoog ahaa hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un warbaahinta dawladda waqooyiga Kuuriya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in dalkaasi ay tijaabiyeen 2 gantaal oo cusub oo lidka diyaaradaha ah kuwaas oo uu toos u kormeeray hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un warku waxa uu sheegayaa in hubkani cusub uu leeyahay awood dagaal oo sareysa iyo tiknoolajiyad gaar ah balse faahfaahin dheeraad ah lagama bixin tijaabadan ayaa lagu tilmaamay mid muujinaysa diyaar garow military oo joogto ah oo dalkaasi galayo dhacdadani ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo waliba kuwa Mareykanka ay bilaabeen howlgallo military oo ballaaran taasi oo ay u muuqato inay ka dhan tahay Kuuriyada Waqooyi taasoo mar walba kicisa cara iyo falcelin ka timaada Pyongyang xadka labada Kuuriya ayaa sidoo kale xaalad kacsanaan ah la soo daristay kadib markii askar waqooyiga Kuuriya ay si kumeel gaar ah uga gudbeen dhulka koonfurta arintaasi oo keentay digniino iyo rasaas digniin ah oo dhanka koonfurta ka timid ugu dambeynna Gaza hadii aynu eegno iyo waliba si guud xaaladda gobolka Bariga Dhexe ciidamada Israa'iil gaar ahaan militarigooda ayaa weerar joogto ah waxa ay ka geysanayaan oo marba marka ka dambaysa si xoogeysanaysa Gaza militariga Israa'iil ayaa gudaha u galay xaafado ku yaala Gaza halkaas oo dad rayid ah oo aan waxba galabsan oo markii horeba gaajo iyo macluul daran la ildarnaa ay ku beegsanayaan telefishinka Al Jazeera ayaa lagu baahiyay qasaaraha iyo waliba sidoo kale tirada dhimashada rasmiga ah ee dadka halkaasi ay ku beegsadeen Israa'iiliyiinta oo aan waxba galabsan dagaalka Gaza ayaa si xoogeysanaya iyada oo weerar ay Israa'iil fulisay ay ku dhinteen ugu yaraan 63 qof sida ay xaqiijiyeen ila caafimaad oo ku sugan gudaha dhulka go'doonsan wararku waxay sheegayaan in ciidamada Israa'iil ay gudaha u galeen xaafadda Sabra ee magaalada Gaza halkaas oo gaadiidka dagaalka culus ay ku sii jeedaan dhanka Zaytuun meel hore loogu bartilmaameedsaday duqeymo joogto ah
Al-Jazeera ayaa soo tabisay in duqeymo kale oo lala beegsaday qoysas barakacyaal ah oo ku sugnaa meelaha ku dhow Khan Younis ay sababeen dhimashada caruur badan, iyadoo caruurtaasi la xaqiijiyay inay ka mid yihiin dadka ku dhintay weerarka. Xaaladda bini'aadanimo ayaa waxa ay sii kasbanaysaa feejignaan caalami ah maadaama 100,000 kun oo qof lagu qasbay in ay guryahooda ka cararaan, halka Israa'iil ay ku adkaysanayso inay howlgalkeeda military uu yahay mid laga maarmaan ah oo lagu bartilmaameedsanayo Xamaas ayaa horey waxay u sheegtay mar sii horeysay kadib markii wasiirka difaaca Israa'iil uu ku hanjabay inuu socdo howlgal lagu burburinayo Gaza, ayaa kooxda Xamaas waxay sheegtay in ay tahay qirasho cad iyo dambiyo dagaal oo ka dhan ah Falastiiniyiinta. Xamaas waxay sheegeen inay xabad joojin iyo waliba sidoo kale dagaalka hubka dhigista ah uusan dhaqan galin ilaa dowlad Falastiin la helo. Lahaystayaasha 7 Oktoobar 2023 ay qafaasheenna aysan sii dayn doonin. wixii ku soo kordha wararka caalamka halkan ayaa noo madal ah. Waxaan ahaa Maxamed Cabdiqani Salaad, Somali Cable TV ayaa daawanaysan akhyaaray tan kulan dambe. Nabadgelyo. usoo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahabalaas.